caaway waxaan aan joognaa waa qayb ka mid ah magaalada Gaalkacyo xaafadaheeda meeshaas oo aan joognaa ay tahay meelihii ugu shidada badnaa ama ugu dhibta badnaa lagu dhuumanayay waayihii u dambeysay ay ku soo urureen qolyahan qaswadayaasha oo dhibka shacabka iyo ummadda gobolka Mudug ka shaqeynayay oo waxa weeye ay godkii u dambeeyay oo ay ku gabanayeen hadday tahay dhanka Puntland kuwa ka soo jeeda iyo hadday tahay dhanka Galmudug dhanka kuwa ka soo jeeda meeshaan waxay hoy u ahayd labadii sharwade oo labada dhinac ka soo kala jeeday waa meeshii ay ku soo ururi jiray waa godkii u dambeeyay ee khamrida iyo muqaadaraadka noocyadiisa kala duwan lagu gadi jiray oo waayihii u dambeysay ay ku soo baqabeeleeyeen oo ay ku soo carareen caaway waxa ka socda magaalada Gaalkacyo operation xoogan iyo gobolka magaalada Gaalkacyo waxa ka socda operation xoogan oo ay sameynayaan ciidamada laamahooda kala duwan iyo ciidanka booliiska waxa shaqadoodii si toos ah ula wareegay ciidanka isku dhafka ee booliiska waxa weeye waxaan meeshaan rabnaa inaan uga sheegno shacabka magaalada Gaalkacyo iyo kan gobolka guud ahaan gobolka Mudugba ciidankaas wuxuu la dagaalamayaa waa muqaadaraadka amni darrada wax kasta oo lid ku ah argagixisada dhammaan wax ka reeban ma jiro ciidanka isku dhafka wuxuu loo sameeyay waxay ahayd xasilintan magaalada Gaalkacyo iyo guud ahaan gobolka Mudug waxaan shacabka magaalada Gaalkacyo faranaa in ay waxa weeye qolyaha muqaadaraadka iyo waxaan shacabka magaalada Gaalkacyo faranaa in ciidanka isku dhafka iyo ciidamada booliiska dhamaantood si fiican ay ula shaqeeyaan waxa loo shaqeynayaa waa shacabka waxa loo adeegayaa waa idinka waxa loo dirirayaa waa cid kasta oo fidno wala oo dhib ku ah amniga khalkhal ku haysta meeshaan waxa iskugu imaanayay inta dhibta iyo fidnada iyo qurunka oo dhan dugsanayso bahalkan soo galay ayagoo islaha ciidamadu ma soo gaarayaan leen kaga warqabo intaas waxba laga warwareegay laakiin dhacdadii falcelinteediina labada maamul iyo ciidamada booliisku dhamaantood iyo laamaha amniga dhan waa lagu hawlan yahay ka hor dhicimayo laakiin waxaan shacabka meeshaan uga sheegayaa hawshaas guul bay ku dhamaatay waxaan halkaan rabnaa inaan u sheegno dadka qoryaha wata ee ku dhex nool labada maamul dhexdooda qof caawa laga bilaabo hadii la arko qof wata qori waxa ciidamada amar loo siiyay oo amar ay ku qabaan inay kala wareegaan qorigaas qofkii isku adkeeya waxa amar ciidamadu ku qabaan in lagu dilo kaasoo waxa weeye fidno wala oo dhib wada oo qaswada qof kasta waxa leenahay qorigaaga xarayso gurigaaga ku xarayso dadka aan ugu nimid xaafadan iyo ereyadan aan ugu nimid waxa meeshaan ka guuray oo ka kacay dadka ugu xumaa ugu dhibka badnaa waxa caaway meeshaan degay oo ciidanka la wareegay ay yihiin waa kuwii inii shaqeynayay aad ku soo hiranayseen nabadgelyadiina ka shaqeynayay waxa la rabaa wax kasta oo xog amni ku saabsan inaad la wadaagtaan gacmo furan ku soo dhaweysaan ayaguna waxay ballan qaadayaan annagoo saraakiishii ciidanka isku dhafka iyo ciidamada qaybaha saraakiisha qaybaha kala duwan waxay ballan qaadayaan in ay yihiin ciidankiini si dhow iyo gacan qabow intaba ay kula shaqeeyaan aad baa u mahadsantihiin qolyaha saxaafadda iyo dhammaan saraakiisha qaybaheedu kala duwan aad baa u salaamanaa wassalaamu calaykum waraxmatullahi